Asxaabta igu xiran maanta waxaan ka hadlaynaa saliido u fiican timaha go'a, timaha daata ama timaha qaleelka ah. Isla socod wanaagsan waxaan idinku hayaa 14 saliidood oo timaha u wanaagsan qaleelka, daadashada iyo timahan koraynin. Ugu horreyn, saliiduhu waxay ku daraan qoyaan, hagaajiyaan caafimaadka xididka timaha, waxayna ilaaliyaan dhismaha timaha taasoo ka caawin karta inuu timaha koro. Saliidan dabiiciga ah waxaa ka mid ah saliidda avokadaha, saliidda lavenderka iyo kuwo kaloo la tuujiyo lowska, inanaha iyo miraha. Si kastaba ha ahaatee, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo faa'iidooyinkan. Ugu horreyn, saliidda qumbaha. Saliidda qumbaha waa mid si weyn loo isticmaalo daryeelka timaha, waxayna hodan ku tahay lauric acid, taasoo si qoto dheer ugu dhex gasho timaha, kana ilaaliso dhaawaca ka yimaado qalajinta iyo iftiinka qoraxda. Daraasado ayaa muujiyay inay ka caawiso hagaajinta timaha jaban. Sida loo isticmaalo: kuleel 1 qaando oo saliid qumba ah adigoo ku dhex ridayo koob ku jiro biyo kulul. Mari timaha iyo maskaxda si toos ah. U daa 30 daqiiqo. Kadib ka raaci shaambo iyo biyo. 2. Saliidda zaytuunka. Saliidda zaytuunku waxay si qoto dheer u dhex gashaa timaha, waxayna yareysaa caabuqa madaxa, taasoo kor u qaadi karta koritaanka timaha. Waxayna sidoo kale ka hortagtaa qaleylka, gaar ahaan cimilada qabowga, waxayna jilcisaa timaha qalloocan. Sida loo isticmaalo: ku shub 2 qaando saliid zaytuun ah. Si toos ah u dhex geli timaha. U sug ilaa 30 daqiiqo. Kadib ka raaci shaambo. 3. Saliidda argan oil. Waxaa la tuujiyaa miraha geedka Moroccan ah, waana mid waxtar u leh timaha qalafsan, jajaban ama aad u qorweyn. Waxay leedahay antioxidant oona ka ilaaliyo lumitaanka borotiinka timaha. Sidoo kale, waxaad u isticmaali kartaa dhaq timaha shaambo iyo conditioner. Mari timaha qoyan dhammaadka ilaa iyo bilowga. Ku fidi shanlo ama gacmahaada ku masaaj garay. 4. Saliidda jojoba oil. Waxaa laga sameeyay inanaha geedka jojoba. Waxaa ku jira dufan iyo wax dhareer ah, jilciyo timaha, isla markaana siiya dhaldhalaal. Waxay ka caawisaa maqaarka madaxa qalalan iyo dandruffka. Waxay sidoo kale yareysaa jabitaanka timaha. Sida loo isticmaalo: ku rid 1 qaando oo saliid jojoba ah, 2 qaando oo castor oil ah. Ku xoq madaxa iyo timaha. Ku dabool towel ama mara, kadib ku dhaq shaambo. 5. Saliidda avokadaha. Waxay hodan ku tahay vitamin E, dufan caafimaad leh iyo macdano oo xoojiyo jirka timaha yareysta jabitaanka, isla markaana dhaldhalaal siiyo. Sida loo isticmaalo: ku mari 2 ilaa 3 qaando oo saliid. Si tartiib ah u masaaj garay 5 ilaa 10 daqiiqo. U daa saacado yar. Ku dhaq shaambo iyo biyo. 6. Saliidda lowska macaan. Saliid fudud oo wax ka qabata qaleylka maqaarka qalalan iyo dandruffka ama agoolka. Waxay sidoo kale ka ilaalisaa dhaawaca ka yimaado qoraxda. Sida loo isticmaalo: ku mari madaxa. U daa 30 daqiiqo. Kadib ka dhaq. 7. Saliidda canabka ama grapeseed oil. Waxay ku habboon tahay timaha duuban. Waxay yareysaa qallooca iyo jajabka, waxayna kordhisaa dhaldhalaalka. Saliidda macadamia. Waxay ku habboon tahay timaha qorweyn ama qalloocan. Waxay yareysaa isku qasan, jilcisaa, waxayna ka ilaalisaa kulaylka qalajiyaha ah. 9. Saliidda baobab. Waxaa laga sameeyay inaha geedka baobab ee Afrika. Waxay kordhisaa dabacsanaanta timaha, dhaldhalaalka, waxayna ka hortagtaa inuu qoyaanka u baxo. Sida loo isticmaalo: ku mar dhibcooyin madaxa. U daa 30 daqiiqo ama ilaa habeenkii. Ka raaci biyo qabow iyo shaambo. 10. Saliidda rosemary oil. Waxaa la aaminsan yahay inuu kor u qaado koritaanka timaha oo hagaajiyo wareegga dhiigga madaxa. Waxaa la barbar dhigayaa daawooyinka timaha ka hortaga dhicitaanka ama daadashada timaha. Sida loo isticmaalo: ku dar dhibcooyin saliid rosemary adigoo ku daray saliidaha kale sida qumbaha ama lowska. Ku xoq madaxa. U daa 30 daqiiqo. Kadib ka dhaq shaambo. 12. Saliidda tea tree oil. Waxay leedahay awood ka hortag caabuqa iyo bakteeriyo, taasoo yareyso agoolka iyo cuncunka madaxa. Sida loo isticmaalo: ku qas dhowr dhibcood saliid tea tree ah ama saliidaha kale. Ku mari madax. Kadib ka mayr adigoo ku dhaqaya shaambo. 12. Saliidda lavender oil.
waxaa la rumaysan yahay inay caawiso koritaanka timaha. Inta badan daraasaad lagu sameeyey xayawaanada. Waxaa kale loo adeegsadaa udgoon qaadasho si loo yareeyo timaha dhicista ama timaha daata. 13. Saliidda mint. Daraasado ayaa muujiyey inay kordhiso wareegga dhiigga, taasoo kor u qaaddo koritaanka timaha. 14. Saliidda yang. Waxay caadi ahaan loo isticmaali karaa caafimaadka maqaarka, balse sidoo kale waxaa laga yaabaa inay wax tar u leedahay timaha. Sida loo adeegsado saliidaha timaha. Ku dar dhowr dhibcooyin shaambo ama conditioner. Mari timaha qoyaan ka hor intaad la qurxinin. Ku xoq madaxa ama ku masaaj garay 30 daqiiqo. Kadib ku dhaq shaambo. Timaha qorweyn jaban saliidaha ku dhaaf ilaa iyo habeenkii. Timaha khafiifka ah ka hor shaambo u isticmaal. Halista saliidaha dabiiciga ah. Halista ugu weyn waa xasaasiyad ama cuncun. Calaamadaha waxaa ka mid ah cuncun, finan, gubasho ama xanuun, barar, xanuun jilicsan ama blisters waxa loo yaqaan. Had iyo jeer ku qiyaas saliidaha udgoon saliidaha kale ka hor intaadan isticmaalin. Ku tijaabi meel yar oo maqaarkaaga ka mid ah. Gunaanadkii. Saliido badan oo laga sameeyo dhirta ayaa qoyaanka ku dara timaha, yareeya qalaylka, hagaajiya dhaawaca, isla markaana kor u qaadi kara koritaanka timaha. Waxaa loo adeegsan karaa sida daawo ku dhaaf ah, lagu daro shaambo ama si toos ah lagu mariyo timaha. Saliidaha caadiga ah, qumbaha, saytuunka, avokaadaha, canabka, looska. Saliido qaas ah faa'iidooyin leh, gaar ahaan argan, baobab, rosemary, tea tree iyo jojoba. Halkaas ayaa muuqaalkeena ku ekeysiinayna. Asxaabta waxaan idin leenahay subscribe inoo saara, muuqaalkan sii share like gareeya. Wixii fikrada qabtiin xagga comment iguna reeba. Wassalaamu calaykum.